goboleedka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo khadka taleefanka ee Kismaayo ugu waramaya markana abaaraha ba'an ee ka taagan qaybo ka mid ah deegaanada Soomaalidu degtay geeska Afrika ayaa waxaa laga soo sheegayaa maalinta ka dambeysa warar dhilo leh waxaa ugu dambeysay war naga soo gaaray deegaanka Jimbac ee gobolka Afdheer ee dowladda deegaanka Soomaalida waddanka Itoobiya halkaas oo haween doontay in ay biyo soo qaataan biyo soo dhaansadaan ay saleen libaax ooman oo dhaawacay qaar ka mid ah haweenkaasi haddaba Cabdi Cabdulaahi Mataan ayaa khadka taleefanka faahfaahinta ku siiyay Axmed Nagaash duruufta walaalow ka jirta waxaa weeye aniga waxaan jiraa 64 gubaan jiraa weli midan oo kale maana arag hadda meesha aan jooga waxaa weeye duunyo waan ka samiray dadkiibaa hadda waxuu ku jiraa qiila waqaala haddii aan lala soo gaadhin toddobaadkan biyo iyo baadna wax badan inuu tegi doonaan u malayn waxaad iiga warantaa gabadhan walaashaaya ee libaaxu uu helay halkuu ka helay xaggayse iyadu ku socotay walaalo meel loo jirta 30 kilomitir yay ayagoo haweena oo 10 qofa yay amnistan baa u arooreen meeshii biyaha laga cabahayay oo gudhay bay u tageen waxay galeen marka meel hul ahoo toosh in lala gala mooyeene aan si kaleeta looga cabbi karin naf baa ku eriday way galeen ayagiibaa hulkii dhexdiisii bay ku kala dhumeen marka sidaa darteed buu ku helay bahalkii ayagoo cararahayeen marka gabadhu yay meel ka dhacday gacan bay marka ka jabtay marka dhaawaca gaadhay waxa weeyaanuun jabniinkaase ma aha qaniinyo uu bahalkii gaadhsiiyey libaaxa ahaa qaniinyo muun gaadhsiinin laakiin haddee sidan oo kaleetu ooga soo kordhacay ilaahay baa afkiisi ka duway laakiin way sigatay oo dhibaatada gaadhay waa jabitaanka waxayna ka cararahayeen libaaxa way kala fiigeen oo haweenkii badh baa habeenkii dhaxay qayday lagu helay kolka ay dhaanka dooneen ma dhabarkay maacuunta ay biyaha ku soo shubanayeen ku siteen mise gaadiid bay wateen maya dhabarka ay ku siteen meeshu waa meel fog gaadiid inta badan haddii loo sii qaado waxaa laga yaabaa wakti dheer inuu qaato waxay islahaayeen marka bal inaad iftiin imaan kartaan umayna suuroobin meeshii biyaha laga cabbi jiray oo gudhay u tageen meel kaleetoo hul ahoo toosh in lala gala mooyeene aan ruux bini aadama haweynaynin bay galeen naftu waa wax baas sidaa darteed buu marka bahalku show meeshuu ku jiray oo ooga horreeyey wuu ka hor imaaday marka deedna sidaa darteed buu eega nabarku ku gaadhay iyada iminka xaaladeedu waa sidee dhakhtarse ma la geeyey meelaha ka dhowdhow dhakhtar kale lama geynina gacantii waa la duubay waa la kabay dad farsamo yaqaan oo farsamo duurka yaqaanaa loogu yeedhay waa la duubay laakiin si inkaaran bay u qanaysan tahay oo hadda hadal ma geri karto deegaanka aad joogtaan ee Jimbac xataa xanaano caafimaad oo xataa wax fudud laga heli karaa idinma dhowo miyaa meesha aan joogno caafimaad saa ma laha gabadh naydhisahoo beri dhaweydna soo tababaray baa joogta nin yahow si ay noqotaybana daawadiibaaba yaaba khatar ku jirta oo daawo fiican waddanka lagama helo haddii duunyadiina aad sidaa uga samirteen dadkiina ay aad u liito sidaad sheegayso meelaha idiin dhowdhow deegaanadaas haddiiba aad biyo ka heli kartaan ma waxaa tabar baa idiin diiday inaad guurtaan oo gaadiid aad ku guurtaan baan jirin mise halkan baad wax ka naawilaysaan in gargaar idinku soo gaadho walaalow horta deegaankoo dhan baa abaartu maanta ka siman tahay meel aan hadda annaga noo dhowo aan ku cararro oo aan nidhaa meeshaa aan wax ka raadinno nooma dhowo maamulkii dowlad deegaanku kolley way ku dhagaysanayaan maxaad iyagana ka codsan lahayd waxaan ka codsanayaa maamulka madaxweynaha iyo cid allaale ciddii wax qaban kartaba inayna soo gaadhaan baan aad iyo aad uga codsanhayaa waxaan codsanhayaa dunyo way naga tagtay dadka in la badbaadiyo biyo iyo baadba lala soo gaadho kaasi